إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. mala waa laga fiican yahay qof bini aadam inuu isagu iska warramo weligiis ma warramin intaan noolaa. nin badan baa ama tv ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo waa ii yimaadeen oo ku waraysan weligeyna war ma bixin weligeyna tv ma tegin waxaa dadku daawadaan masaajidda unbay ka qaateen cajaladaha yaalla. dee waxaan islahaa cali markuu iska warramo aad ka dambaysid calina diid inuu warramo marka wax badanoo aan idin sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro wakhtigiina la lumiyo maaha. anuu ragga halkan fadhiya waa ka wada da'weynaan u malaynaya sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaabaa ka dhashay aabbahay xaaji baa uu ku magac dheeraa na sheekh uu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay wakhtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliya dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday. laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiye ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiye joogta inay baadiye lagu soo umulo. intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalannay. baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay. takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda. kadibna waxaa noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcan macallin ka noqday. markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay. dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray. station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin. mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray. calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd uun culammada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsannay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay. intii dambana si aanu joogo uun waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay. wakhtigaas baan waddanka ka baxay. yurub iyo meelahaasaa niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday. ilaa 99kii baan deganaa yurub. march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa. ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood dama burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelaha aan ku noqdo. qaab nololeedkii Soomaaliya
soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina democracy bay ahayd. democracy qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan. waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saasa cirka yaale cirkiiyo dhulkaa la sheegan jiray heballada jiray. dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay. scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir. annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baanu ahayn. ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin. waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furayn. diyaaradaha dabadda ka yimaada only xamar oo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto. isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray. marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd. haddaan qiso idiin sheego 72 anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow. habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa. tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo. jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn. waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahy ku daboolan. habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay. labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay. yani kutub ma taalo badani aad bay cidhiidhi u ahayd. culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan. bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyarada tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado. nin inuun tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray. waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray. calaa kulli xaal waxaan uga dan leeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan jaaniska idinku haysataan ma oolin waaga. jaaniskana in kutubtu bahalka inaad jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ayi kitaab aad u baahata aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo 12,000 oo majalladay ku jiraan. yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara ee wax baxdin kara wax baadhi kara waagaa ma oolin. laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo inay ilaahay waxaan ugu dhowaadaan ay ku jirto. marka anugu qadiyadda aan jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ee ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin. waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido. xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aada akhriyi lahay uu cidhiidhi kugu gelayo. intan dambena dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay. anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin. macallinkuna deris loo dira buu soo diyaariyaa oo uu daadhiga ah. waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga ah inaanun yurub ka hortegayo wax akhriyo dad waxu akhriyay. waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badane hore ee 90yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray. waa soomaaliyeed oo norway maqaaxid Somali welfare la yidhaahdo Somali welfare organization ayaan ku yihi war 2 toddobaad maalin wax maydin akhriyaayo markaasay idhaahdeen ha niman
carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla aliimaan arkaan aliimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka warramo nin dhallinyaraa baan aha hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ilan 14 cashaan mar helaya markaa waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay mala ninkan sheekh weyn waa sheekh weyn marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku idhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekh ama fadhiyo wax akhri ama iska tag hagga dhammo la fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidan iminka ay u badayn uma badnayne VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana 200 cajaladood bay ka dhigano iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin nin cabdillaahi xuseenka ahiya la yidhaahda iyo inaan loorana la yidhaahday axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan waar waa sidee dee waxaana iibinaysana waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaan iska aamusoo sibida masaajidkaan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan uu dadka weydiinayana mala in isagu ka jawaaba bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum